buuggani insha allahu tacaala waxa uu anfacayaa laba qof anfacaya. Waxaa anfacaya qof hal abuuro ah, hal abuuro ganacsi ah oo raba in fikrad uu hayo inuu ka midho dhaliyo oo abuuro oo fikrad ganacsi u bedelo, iyo qof ganacsada ah oo awalba ganacsiga kusoo jiro oo doonaya ganacsigiisa inuu kobciyo oo horumariyo. Labada qof oo anfacaya. Sidoo kale buugga waxaa ku dhex jira sheeko dhex maraysa qoraaga iyo gabadh loo yaqaano Saara. Gabadhan Saara loo yaqaano waa gabadh iyaduna hal abuuro ah oo ganacsada ah. Muddo 3 sano 4 sano markay ku jirtay ganacsiga oo ay la kulantay caqabado fara badan iyo dhibaatooyin fara badan iyo challengeyo fara badan markii hor yimaadeen, ayay ninkan la kulmaysaa qoraagan Michael Gabor. Deetana wuxuu isagu buuxinaya booskii qof sidii la taliyo oo kale ah. Caqabadaha iyo waxa mashaakisha soo martay iyo waxyaabaha ka hortaagan inuu ganacsigooda kobco ayuu la xalinaya. Marka waxay ka dhigan tahay qof sidii qof markaad rabtid inaad adigu fikrad hal abuur la timaadid, sidii qof kula talinayo kale ayuu kaaga dhigmaya. Sidoo kale wuxuu kaga warramaya buuggan inuu ganacsigu ku taagan yahay 3 tiir. Waa entrepreneur oo qofkii hal abuuraya ganacsiga, iyo manager, iyo farsamo yaqaankii shaqada qabanayay. Saddexdaas ayuu ka warramaya inuu leeyahay 3 tiir ee ganacsiga uu leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan idil ahaantiin meel kasta joogtaan. Insha allahu tacaala waxaynu toddobaadkan qaadanaynaa sidii caadadaynu ahayd barnaamijkeenii nuxurka bugaagta, oo aynu ugu talagalnay in aynu kusoo gudbino alaaba buugga aynu isleenahay waxa uu anfacaya dadka. Bugaagtaasoo ka kala kooban jaanibyo kala duwan oo nolosha ah. Jaanibka aynu isleenahay maanta insha allahu tacaala wax ka soo qaata waa jaanibka ganacsiga oo ah runtii jaanib guda ballaaran, ama siiba jaanibka entrepreneurka ama hal abuuraha ganacsi small businesska weliba ayaynu wax ka soo qaadaynaa. Buuggan maanta soo qaadayna waxaa loo yaqaanaa The E-Myth, oo uu qoray qoraa waddanka Mareykanka u dhasho oo loo yaqaano Mikhail Gabor. Mikhail Gabor buuggan wuxuu qoray hilaadii 1986 1986 ayuu qoray. Hase ahaatee buugga waxaa dib loo muraajaceeyo, dib u eegis loogu sameeyey 1995 ayaa dib u eegis loogu sameeyey. Waa buug ka warramaya guud ahaan markaynu si guud u sheego, buug ka warramaya jaanibka ganacsiga. Wuxuu anfacayaa laba qof. Qof ganacsi doonaya inuu abuuro ama fikrad hal abuuro ganacsi abuuro, iyo qof raba ku jiray fiilka ganacsiga small businesska ku dhex jiray oo xal iyo maaro u leh siduu ganacsigiisa u kobcin lahaa. Wuxuu kaga warramaya buugga sheeko dhex taala oo kaga warramayo gabadh loo yaqaano Saara oo ugu jiro macnihii la taliyo oo kale isagu. Gabadhaas waxay soo martay caqabado fara badan. Waxay ahayd farsamo yaqaan. Waxay samayn jirtay waxaan loo yaqaano macmacaanka. Deetana iyadoo sidii farsamo yaqaan u ahayd ayaa waxay furatay ganacsi. Marka wuxuu ka warramayaa sheekadii dhex martay oo ah sheeko aad iyo aad u xiiso badan. Sidoo kale wuxuu ka warramayaa qawaacid guud oo qofka hal abuuraha ama qofka entrepreneurka looga baahan yahay, ama traits ama dabeecado looga baahan yahay qofka hal abuurka ah. Insha allahu tacaala inagu markaa waxaan isku dayi doonaa inaynu wixii faa'iido ee buugga ku jira inaynu insha allahu tacaala wadaagno. Mikhail Gabor waxa uu isticmaalaa markaad aragtid productionkiisa wax soo saarkiisa markaad aragtid waxa uu isticmaalaa kelmadda myth ama E-Myth buu isticmaalaa. Isaga iyo gabadh uu qabay xaaskiisa ayaa waxay aasaaseen kulliyad ama academic tababara ganacsiyada ama hal abuurayaasha ama entrepreneurka tababara. Marka waxa uu qaatay kelmadda loo yaqaano E-Myth buu qaatay. E-Myth kelmadda myth macnaheedu laba macno ay qaadataa, dhowr macnayaal way qaadataa, laakiin laba macno ugu muhiimsan inay sheegto traditional history ama sheeko waa hore oo dadka hore samayn jiray inay sheegto oo laakiin imika waaqaca waafaqay, iyo inay sheegto waxa loo yaqaano false history ama sheeko been ah ama mala awaal ah inay sheegto. Marka wuxuu leeyahay waxa isku xidhan buu leeyahay. Iidana wuxuu uga jeedaa entrepreneur uga jeedaa. Marka wuxuu leeyahay waxaa jirta sheeko bereley hal abuur ku maro oo waddanka Mareykanka. Wuxuu leeyahay 85% ganacsiyada Mareykanka way falgalaan, waxaana sabab ah myth-kana ama sheeko bereleydana iska dhaadhiciyeen. Intaan buugga qoraagu aynan u gudbin nuxurkiisa, haddaad 4 qodob fahantid oo buugga kaga warramay, buugga dhan waad fahantay. 4taa qodob waxa uu ku sheegayaa hordhaca. Inta kalena wuxuu ku faahfaahinayaa buugga xaashadiisa kale ama qaybihiisa dambe wuxuu ku faahfaahinayaa 4taa qodob buu ku faahfaahinaya. 4taa qodob waxay yihiin wuxuu ku tilmaamayaa 4 profounded ideas, 4 talo oo hordhaco ama 4 fikradood oo hordhaco ah buugga.
afartaa hordhac wuxuu kaga warramaya wuxuu leeyahay qodobka koowaad ama fikradda koowaad wuxuu kaga warramaya wuxuu leeyahay waxaa jirta buu leeyahay dhammaan ganacsiyada yaryar ama entrepreneurska waxa ay iska dhaadhiciyeen waxaan aaminsanahay dhammaan ganacsiyada yaryar ama small businesseska oo dhan ee Mareykanka jira inay aasaaseen rag entrepreneurs ama rag hal abuura inay aasaaseen laakiin wuxuu leeyahay taas waa been waa false ama waa myth buu leeyahay sababtoo ah wuxuu leeyahay waxa aasaasay sida cagsigeeda rag farsamo yaqaan ah wuxuu leeyahay ninkii nijaara wuxuu isku dayay inuu meel nijaarnimo furto kii qoraa ahaan jiray wuxuu isku dayay inuu maktabad furto wuxuu isku dayaa kii lawyerka inuu furto meel ganacsi lawyernimada ku saabsan inuu furto ayuu isku dayaa wuxuu leeyahay laakiin waxa kala duwan buu leeyahay waxa kala duwan waxa loo yaqaan entrepreneurka iyo farsamada oo technicianka ah wuxuu leeyahay waa laba aragtiyood oo kala duwan iyo laba shaqo kala duwan buu leeyahay qof walba shaqo haya wuxuu leeyahay midna wuxuu ka fikiraa sidii uu macmiilka u qancin lahaa macmiilka waxa uu rabay product uu rabay ama service uu rabay sidii uu u adeeg lahaa midna wuxuu ka fikiraa wuxuu leeyahay siduu macmiilka usoo trap gareyn lahaa usoo dabi lahaa ayuu ka fikiraa wuxuu leeyahay marka laba shaqo kala duwan ay kala qabanayaan buu leeyahay marka wuxuu leeyahay haddii aynan fahmin maraykan ahaan buu ka hadlaya wuxuu leeyahay haddii aynan fahmin kala fahmin waa maxay entrepreneur iyo entrepreneur noqon karaya iyo technician qofka technicianka farsamadiisa iyo farsamo yaqaankiisa haddaynan kala fahmin waxaan ku jiraynaa buu leeyahay inay small businessekeenu failure boqolkiiba 80 iyo ka badan bay noqdaan kuwa guuldaraysta wuxuu leeyahay qofka farsamo yaqaanka markii uu ganacsiga aasaaso waxa laga yaabaa qof koobiga ku fiicnaa ama qoraalka ku fiicnaa inuu maktabad aasaaso wuxuu leeyahay waxa laga yaabaa qof ku fiicnaa inuu macmacaanka iyo qaabka loo sameeyo inuu aasaaso meel macmacaanka lagu sameeyo deetana qofkii farsamadii buu hayaa farsamo yaqaankii buu hayaa laakiin intuu farsamada ku shaqaynayo farsamadu mihnadiisa iyo xirfadiisa ay ahayd xirfadiisa uu ku shaqaynayay waxa ka gadaaneed ganacsigu uu shaqaynayay inuu lahaa entrepreneur u khaasa ama dad gaar oo khaas oo maamulo ka fikira 5 sano mustaqbalka 10 sano soo socda iyo 30 sano soo socda halka mustaqbalku halka uu ganacsigaas aadi doono marka waxa ka qarsoonay buu leeyahay in macmiilka la dhiil garanayay qaabka macmiilka loo qancinayo in cid gaar ah qaabilsan shaqada qabanaysa dadna qofkii marka uu aasaaso farsamadiisa uu bedelo ganacsi uu ganacsatadii suuqa ganacsiga soo galo wuxuu leeyahay waxa uu doonayaa qofkaas uu sabab loo soo galo ganacsi waxa kamid ah leeyahay in qofku uu dareemo freedom inuu dareemo inuu xorriyad dareemo inuu financial freedom dareemo xorriyad dhaqaale inuu dareemo xorriyad waqti inuu dareemo inuu meel alaale meesha uu doonayo dunida ka tagi karayo xilliguu doono uu soo kici karayo xilliguu doono uu seexan karayo laakiin wuxuu leeyahay taas way ka duwan tahay buu leeyahay marka aad farsamo yaqaan aad ganacsigii farsamada aad taqaanay ganacsi u gashay wuxuu leeyahay wax kasta waxay tahay inaad aad qabatid sida ku dhacday Saara oo nooga warrami doono wuxuu leeyahay Saara waxay ahayd gabadh samaysa macaanka dadna waxay dareentay inay fursad banaan tahay kadib ganacsi ayay furatay 3 sano ka hor intaan aniga yiman dadna waxay aasaastay buu leeyahay ganacsi lagu sameeyo baakin baayiska oo macaanka iyo waxyaabaha yar macaanka ee soft foodska lagu sameeyo wuxuu leeyahay Saara waxay shaqada soo gashay 7 subaxnimo waxay ka warwaxdaa 9 habeenimo iyada oo dareemaysa walbahaar iyo walwal iyo stress badan iyada oo dareemaysa waxa uu leeyahay waa mihnad ay jecleed iyo farsamo ay jecleed laakiin farsamadii waxa u bedelay mid u soo urta oo markay aragto ay aragto inta ka laabato marka ay uriso ama ay dhadhankeeda dhadhamiso baakin baayiska ama macaanka ay sameeysay mid ay karasto waxa ka dhigay shaqadii ayaa ku farabadatay wuxuu leeyahay marka haddaynan si wanaagsan u fahmin waxay kala yihiin entrepreneurka iyo technicianku weli waxaan iska dhaadhicinaa sheeko bereley ah qof kasta farsamo yaqaan uu noqon karayaa hal abuur ganacsi taasuu ka dhigaya fikradda koowaad fikradda labaad waxa uu ka dhigayaa Mikhail Gogol waxa uu ka dhigayaa ka ganacsi wuxuu leeyahay kacanka ganacsiga ka warramaya wuxuu leeyahay businessku wuxuu maraa revolution buu maraa wuxuu leeyahay businesskina haddayna American nahay ama Maraykan haddayna nahay waxaan u baahanay revolution business revolution baynu u baahanay kacaan ganacsi baynu u baahanay oo aynu bedelno miiska iyo waxaan aaminay sheeko bereleyda aan aaminay aynu bedel lahayn wuxuu ugu magac daray markaa wuxuu ugu magac daray turning care revolution buu ugu magac daray hayaankii kasoo kabashada ayuu ugu magac daray wuxuu kaga warramayaa markaa qaybta wuxuu kaga warramayaa waxa uu leeyahay waa inaan qeexnaa buu leeyahay qofka entrepreneurka noqonaya maxaa looga baahan yahay muxuu samayn karaa halkuu ka bilaabaya halkuu ku dhamaanaya halkuu inaynu fahanno u baahanay wuxuu leeyahay entrepreneurku
wuxuu leeyahay barbilow laakiin bardhamaan ma laha. wuxuu leeyahay entrepreneurka shaqadiisu kaga warramaya yaa entrepreneur noqon karaya, qofkeebaa kusoo dabeecadeebu yeelanaya qofka noqonaya entrepreneur ayuu kaga warramaya. marka qaybtaa fikradda wuxuu ku qeexaya, wuxuu leeyahay wuxuu ugu magac daray turning care solution. marka wuxuu kaga warramaya fikraddaas labaad wuxuu kaga warramaya, wuxuu leeyahay ugu magac daray for professionals. qaybta labaad wuxuu kaga warramaya, wuxuu qeexaya qofka hal-abuur yaa noqon karaya ama entrepreneur yaa noqon karaya. fikradda saddexaad wuxuu kaga warramayaa, wuxuu ugu magac daray business development process, ama hilinka uu maro hayaanka aynu rabno ama kacaanka aynu rabno inaan ku sameyno small businesseska aan ku sameyno processka uu kaga warramaya. marka wuxuu ka warramayaa qaybtan marka waxay faa'iido u tahay, halkaa u fiirso, qaybtan waxay faa'iido u tahay qofkii maanta ku dhex jiray ganacsiga, ganacsigiisii caqabado badan kala kulmay. qaybtan waxay faa'iido u tahay qofkaas, sababtoo ah wuxuu ka fikirayaa hadduu qaybtan akhristo wuxuu u diyaariyey hilin uu mari karayo business development ama horumarinta ganacsigu hilin ay mari karayaan iyo waddo ay mari karayaan ayuu jeexay oo kaga warramaya. fikradda afraad ee u dambaysa buugga wuxuu kaga warramayaa, waxau leeyahay business development processka ama business development strategy-gaasi waxa weeyaan waa business development strategy ama business development process la kala dhaxli karayo. wuxuu leeyahay cid kasta waa mid wax ay dabaqi karayso, oo wuxuu leeyahay wax loo samayn karayo maamul daadejin oo maamulkeedii la daadejin karayo. wuxuu leeyahay isagu wuxuu ka fikiraya, wuxuu leeyahay ganacsigu waa inuu 100 sano iyo wax ka badan weyni jiraa. wuxuu leeyahay markaa qofka hal-abuurka entrepreneurka ahi marka uu la yimaado fikraddii uu qaato business development strategy ama business development process markuu qaato, waa inuu qofkani waxa uu leeyahay waa inuu laga dhaxli karaya oo lasii kala dhaxli karaya wixii la dabaqi karaya markii la diyaariyo dib loo dabaqi karaya. wuxuu leeyahay markaa business development strategy-gan aan diyaarinay waa inay noqotaa mid u qaabaysan in la kala dhaxlo. guud ahaan markaa qoraagu haddaan isku soo wada ururiyo intaas buugga kaga warramaya, intaasaan buugga ku faahfaahinaya. runtii waa buug fiilka aan kasoo dhex doortay, waxaan uga soo dhex doortay inay tahay in uu faa'iido fara badan leeyahay, si yar oo fududna loo fahmi karayo oo la akhrisan karayo. aad baan idinka mahadcelinaya waqtigiina qaaliga ah ee aad ii hurteen inaad daawataan barnaamijkan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.